madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo xulafadiisa siyaasadeed oo haatan dhaqdhaqaaqyo ka wada magaalada Nairobi ayaa qorsheynaya in dib loo soo celiyo maamulkii hore ee ay dowladda Soomaaliya ka saartay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah afhayeenka Laftagareen ayaa shaaca ka qaaday in bil kadib dib u doorashadii Cabdicasiis ay ka shaqeynayaan soo celinta maamulkii sharciga ahaa si loo helo nidaam iyo kala dambeyn dowladeed. Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo bartiisa ku baahiyay qoraal dheer ayaa qoraalkiisa u dhignaa sida tan: 28 Abriil xusuusta bil kadib dib u doorashadii madaxweyne Laftagareen iyo muhiimadda ay leedahay dowladnimada Koonfur Galbeed. Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 28 Abriil waxay xusuus gaar ah u leedahay shacabka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, maadaama ay tahay maalintii dib loo doortay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. waa maalin dib loogu milicsanayo guulihii la gaaray iyo horumarka maamulkaasi ka sameeyay dhinacyada amniga, xasiloonida siyaasadeed iyo adeegyada bulshada. hase yeeshee nasiib darro Koonfur Galbeed waxay wajahday fargelin toos ah oo kaga timid dowladda federaalka, taasoo loo adeegsaday awood ciidan iyo cadaadis siyaasadeed, isla markaana sababtay burbur ku yimid hay'adihii dastuuriga ahaa ee dowlad goboleedka. Tallaabooyinkaas waxay dhaawaceen madax-bannaanida maamulka iyo hanaankii sharciga ahaa ee lagu dhisay dowladnimada Koonfur Galbeed, isla markaana wiiqay jiritaanka nidaamka federaaliga. Si kastaba ha ahaatee, shacabka reer Koonfur Galbeed waa inay ogaadaan in ay socdaan qorshayaal dib loogu soo celinayo hogaankii sida sharciga iyo dastuurka waafaqsan loogu doortay. Ujeedadu waa in dib loo soo nooleeyo nidaamkii sharciyadda ku dhisnaa loona xaqiijiyo in rabitaanka shacabka uu noqdo saldhigga maamulka. Maalintani maaha oo kaliya xusuus taariikheed, balse sidoo kale waa fursad muhiim ah oo shacabka reer Koonfur Galbeed dib ugu xusuusanayaan qiimaha ay leedahay in ay si madax bannaan u maamulaan aayahooda siyaasadeed una ilaashadaan xuquuqdooda dastuuriga. Qoraalkan ayaa laga dheehan karaa in maamulkii hore ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdicasiis Laftagareen ay diyaarinayaan qorshe ka dhan ah inay dib ugu soo laabtaan Koonfur Galbeed iyagoo ah mar kale maamulka Koonfur Galbeed.